الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحو كبلابنيا آيات بقول إيا اللباتن إيا السقالات أو سورة البقرة كمدة إلهي سبحانه وتعالى وحو نوغسوا ورمي نبي الله إبراهيم يويل كيس إسماعيل هاي sidii maaragtay yaa ilaahay beydkiisa ay u dhiseen iyo hadalladii ay yidhaahdeen ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nooga soo warramay iyo ducadii ay u duceeyeen beydkaas ahalkiisa ay u duceeyeen ducadii marka waxaa ka mid ahaaday inay yidhaahdeen rabbigeennow ka soo bixi ayay yidhaahdeen rasuul ayaga ka mida ka soo bixi bay yidhaahdeen waxaana soo marna ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu nabigeenna ku ajiibay rasuulkaasoo ku akrinaaya aayaadkaaga kitaabkana baraaya xigmadana baraaya kitaabku waa kitaabka qur-aanka xigmaduna maa fiihi min alaxkaami waataan soo dhahnay haddana dahiraaya oo shirkiga ka dahiraya innaka anta alcasiizu alxakiimu ayay yidhaahdeen ilaahayow waxaa tahay mid casiisahoo qaalib oo xakiima ayaa tahayoo shay walba mawliciisa dejinaaya meeshaa marka waxaynu ka gelaynaa nebiyullaahi ibraahim markii ilaahay saa uga soo warramay millada nebi ibraahim sida ay tahay oy maaragtay yaa u weyn tahay ayaa ilaahay nooga warramayaa oo waxaa la ammaanayaa nebiyullaahi ibraahim diintiisa ayaa la ammaanayaa isla markaasna qofka ka jeesta waxa uu yahay baa ilaahay ka warramayaa ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wamankeebaa yarqabu ka jeesanaya can millati ibraahiima nebi ibraahim diintiisow dha ilaahay oo ka tegaya ilaa man duul mooyaane safiha nafsow naftiisa jaahil ku ah mooye marka aayaddaas shalay waxaynu soo sheegnay casharkeenni ugu dambeeyey sabab nusuulka waxa uu ahay macnihii keliya ayaan markaan dul maraynaa allah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala yow yaha midka ka jeesanaya nebi ibraahim milladiisii ow dhah ilaahay ilaa ruux naftiisa jaahil ku ah mooye wala wallaahi qad xaqeeqeh ayuu dhah ilaahay isdafaynaahu waanu doorannay nebi ibraahim fi dunyaa adduunyada ayaan ku doorannow dhah ilaahay oo adduunyada risaale ayaan u doorannay iyo khaliilnimo ayaan u doorannow dhah ilaahay wa innahu ibraahim ayuu dhah haddana ilaahay fil aakhirati aakhira dhexdeeda la min asaalixiina kuwa suusuuban ayuu ka mid yahay ow dha ilaahay marka hadda istifhaamtan waman yarqabu can millati ibraahiima waxay noqonaysaa istifhaamul inkaari bimacna nafyi weeye ma jiro waxaa weeye qof nebiyullaahi ibraahim diintiisa ka jeesanaya ilaa midkaa la soo reebayoo safiiha mooyaane cid kale kama jeesanaysa weeye marka hadda waxaa weeye millada waxaa loola jeedaa diintiisa ayaa iyo shareecadiisa ayaa loola jeeda ha la yidhi
marka hadda milladu iyo diinta iyo shariicadu waa isku mid baa layidhi, waana axkaam ilaahay subxaanahu wa tacaala uu jideeyey in maaragtay lagu cibaadaysto oo alla lagu caabudo alla uu jideey weeye. sida marka haddii laga fiirshaa layidhi fa min xaysu imlaa'ihaa ayaa layidhi, sida markaasi waxaa waaye laysugu meerinaayo waxaa la yidhahdaa millo ayaa la yidhaha. haddii laga fiirsho sida alla u jideeyane waxaa la yidhaha shariico ayaa la yidhaha. xagga tadayunka oo waxaa weeye laga diin yeelanayo markii la fiiriyane diin ayaa la yidhaahdaa. marka macnay isku noqonayaan. marka waxaa weeye safiihaas mooyaane cid kale kama jeesanayso ayuu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala. marka nebiyullaahi ibraahim alla wuxuu yidhi alla wuxuu dhahay waanu dooranay nebi ibraahim, adduunyada ayaanu ku dooranay risaalo iyo khillo. haddana ilaahay wuxuu yidhi wa innahu ibraahim fil aakhirati aakhira dhexdeeda la min asaalixiina kuwa suusuuban ayuu ka mid yahay, alladiina lahumu darajaatu lculaa weeye, waa kuwa derajada sarraysa iskale ayaa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala. marka hadda saalixiinta uu ka mid yahay ayaa la yidhi, waxaa la yidhi saalix kelimada la yidhaahdo waxay ku dhacaysaa ambiyada iyo rususha iyo maaragtay mu'miniinta way ka dhexaysaa ha la yidhi. haddana ilaahay wuxuuna leeyahay subxaanahu wa tacaala wadkur xus ayuu dhahay ilaahay isagoo rasuulkiisa la khidaabaaya, id waqti qaala lahu oo u dhahay nebi ibraahim rabbuhu rabbigiisa oo u dhahay aslim hoggaamsan ibraahimow, oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u hoggaansan diinkaagana u khallis. wadkur xusow dhah ilaahay id waqti qaala lahu oo u yidhi rabbuhu rabbigiisu aslim hoggaansan oo u dhahay. sidaa markii loo yidhi qaala wuxuu yidhi aslamtu waan hoggaansamay ayuu dhahay nebi ibraahim lirabbi alcaalamiina, caalamiinta rabbigooda ayaan u hoggaansamay. sidaa ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu u dhahay qaala wuxuu yidhi ow dhah ilaahay nebiyullaahi ibraahim aslamtu waan u hoggaansamay lirabbi alcaalamiina, caalamiinta rabbigooda ayaan u hoggaansamay. oo markaasi alla ayuu ula jeedaaho ilaahu adaan kuu hoggaansamay ayuu ka wadaa. wa wasaa waa dardaarmow dhah ilaahay bihaa milladaas ibraahiimu nebi ibraahim beniihi wiilashiisa ayuu u dardaarmay, wa yacquubu yacquub isaguna waa dardaarmay oo wiilashiisa ayuu u dardaarmay. milladata nebiyullaahi ibraahim oo sidaa u sharafta badanne ayaa ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala nebiyullaahi ibraahim waa dardaarmow dhah ilaahay, milladaas waa dardaarmay diintaas beniihi wiilashiisa ayuu u dardaarmow dhah ilaahay subxaanahu wa tacaala. oo waxa weeye nebiyullaahi ismaaciil iyo isxaaq weeye iyo markaasi yacquub weeye, laakiin yacquub waxaa gooni loogu sheegayaa isagu waxaa weeye ibnu isxaaq weeye. haddana waxaa weeye reer banu israa'iil oo dhan waxaa weeye markaasi waxay ka soo farcameen nebiyullaahi yacquub. wa yacquubu yacquubna waa dardaarmow dha ilaahay oo wiilashiisa ayuu u dardaarmow dha ilaahay subxaanahu wa tacaala. marka qaala ayaa ku qadiray nabi yacquub wuxuu dhahay yaa beniya ayuu dhahay wiilashaydiyow in allaaha alla istafaa waa doortay lakum idinka addiina diinka islaamka ayuu idiin doortay, ee falaa tamuutunna ha dhimana oo ha dhimana ilaa wal xaal antum idinku muslimuuna kuwa hoggaansamay aatiin mooyaane si kale ha ku dhiman ayuu dhahay. marka hadda ilaahay subxaanahu wa tacaala yahuud hadalkeedii ayaa lagu radinayaa oo waxaa weeye nebiyullaahi yacquub wixii ou ahay ayay markaasay ka been sheegeen. markaasuu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi nebiyullaahi yacquub yaa beniya wiilashaydiyow in allaaha alla istafaa lakum uddiina, istafaa waa idiin doorta lakum idinka addiina diinka islaamka ayuu idiin doortay, ee falaa tamuutunna ha dhimana oo ha dhimana ilaa wal xaal antum idinku muslimuuna kuwa hoggaansamay aatiin mooye. marka waxau ka nahiyaa layidhi islaamka inay ka tagaan, waxaana uu amray baa layidhi islaamka inay ku sugnaadaan ilaa musaadafati mawdaa layidhi mawd intay ka haleelayaen inay muslimiin ay ahaadaan. macnuhu waa sidaasaa layidhi. marka haddana ilaahay wuxuu yidhi am kuntum ma waxaad ahaateen reer banu israa'iilow shuhadaa'a kuwa xaadiriinahoo goobjooga id waqti xadara uu ku soo xaadiraayey yacquuba yacquub almowtu mowtka uu ku soo xaadiraayey. id waqti miyaad xaadir aheedanow dhah ilaahay qaala uu dhahay nebiyullaahi yacquub libaniihi wiilashiisa uu dhahay maa tacbuduuna maxaad caabudaysaan min bacdii aniga gadaashayda maxaad caabudaysiin mowdkayga ka bacdi. qaaluu waxay yidhaahdeenow dhah ilaahay subxaanahu wa tacaala nacbudu waxaanu caabudaynaa ilaahaka ilaahaaga ayaan caabudaynaa iyo wa ilaaha aabbaa'ika aabbayowgaa ilaahooda ibraahiima ibraahiim ah wa ismaaciila ismaaciil ah wa isxaaqa isxaaq ah. ilaahan ka beddel ilaah ayaan caabudaynaa ay yidhaahdeen, ilaahaasoo waaxidan oo keligiisa wa naxnu annaguna lahu allahaas muslimuuna kuwa u hoggaansamaya ayaanah. marka hadda aayaddan waxay soo degtay baa layidhi
yahuud ayaa nabigeena calayhi salaatu salaam waxay ku yidhaahdeenaa layidhi alasta taclamu anna yacquuba yowma maata awsaa baniihi bilyahuudiyati waxay yidhahdeen maxamedow sowma ogid yacquub maalintii uu dhimanaayey inuu wiilashiisa u dardaarmo diinta yahuudiyada oo waxaa weeye diin kale annagu shuqul aanan ku lahayn arrintaasaa marka ilaahay subxaanahu wa tacaala ku beeninayaa sida aayadda aynu ka soo baxnaba aanu ku sheegnay marka ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala maxaad aheedow dhe marka aayaddaanaa soo degta markaasuu dha ilaahay am kuntuma waxaad aheedeenow ilaahay reer binu israa'iilow shuhadaa'a kuwa xaadiriina weeye oo goobjoog ahay id waqti xadara uu ku soo xaadiraayey yacquub almowtu mowtka ku soo xaadiraayey id waqti miyaad xaadir aheedeen tii horaa laga beddelayaa qaala uu dhahay nabi yacquub libaniihi wiilashiisa uu yidhi maa tacbuduuna maxaad caabudaysiin min bacdii aniga gadaashayda sidaa markuu yidhi qaaluu waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay raggii markaas xaadirka ahay nacbudu waxaanu caabudaynaa ilaahaka ilaahaaga iyo wa ilaaha aabbaa'ika aabbayowgaaga ilaahooda ibraahiima wa ismaaciila wa isxaaqa hadda waxaa weeye ismaaciil aabbaadi ayay ku turiyeen waxaa markaasi taqliib ahaan weeye markaasi way iska qallibayaan maxaa yeele adeerku waxaa weeye wuxuu joogaa ha layidhi bimansilati alabi aabbaha mansiladiisa ayuu joogaa ee hadda waxaa weeye ismaaciil markaasi adeer ayuu ahaaye waxay ku abtirsanaayeen isxaaqay ku abtirsanaayeen marka hadda nebiyullaahi yacquub owlaadiisu sidaas ayay dhaheen ilaahan ilaah ayaan caabudaynaa ha yidhaahdeen waaxidan oo keligiisa wa naxnu annaguna lahu allahaas muslimuuna kuwa u hoggaansamaayo ayaana marka hadda waxaa weeye sidaas ayay yidhaahdeen owlaadu yacquub adinkuna waxaa weeye hadal beena ayaad sheegaysiin sidaas ayaa laga wadaa marka ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala xaadir markaas ma aadan ahayna waqti nebiyullaahi yacquub ou geeriyoonaayey owlaadiisana uu la dardaarmaayey dardaarankii ayaguna saasay ugaga ajiibeen markaseed ugu nisbaynaysaan waxaan laa'iq u ahayn ayaa ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala markaasuu dhah ilaahay tilka taasou dhah ilaahay subxaanahu wa tacaala mubtada weeye ishaaradana waxaa la ishaarayaa oo mushaaru ilayhi uu noqonayaa nebiyullaahi ibraahim iyo casharkeenna aayaddaas ayuu noo joogayaa halkaas ayuuna ku eg yahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam